first books I read on investment were actually in my dad's office. Pretty soon I read all the books in the office. waxaa lagu naanaysaa gorgorkii saamileyda Mareykanka waa rugcada ganacsi sidoo kale waa maalgeliye xidig ah waana aasaasaha shirkadda saami ee ugu baaxadda weyn adduunka iyadoo saamiyo ku leh in ka badan 60 shirkadood oo ku kala yaala daafaha adduunka hantida aabihii iyo sumcadiisii kama dhigin mid ku tiirsanaada lacagtiisa wuxuuna xilli hore oo yaraantiisa ahba bilaabay yigleelidda hantidiisa u gaarka ah isagoo awood u yeeshay inuu magaciisa ku xardho xarfo ka waaweyn kan aabihii muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa Sheekada Guusha Warren Buffett maalgashadaha adduunka ugu hantida badan halkani waa Waaberi Media magacayguna waa Cabdiraxmaan Cumar ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta wuxuu dhashay Buffett 30 Agoosto 1930 isagoo ku dhashay magaalada Omaha ee dhacda gobolka Nebraska dalka Mareykanka waxbarashadiisii heerka koobaad wuxuu ku qaatay jaamacadda Nebraska Lincoln Columbia oo uu ku bartay cilmiga ganacsiga waxaa lagu sheegaa inuu yahay ninka saddexaad ee dunida ugu taajirsan sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka dunida ugu caansan dhanka ganacsiga hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 99.9 bilyan oo dollar wuxuu ku soo dhex barbaaray qoys magac ku leh siyaasadda dalka Mareykanka aabihiis Howard wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan dawladda dhexe ee Mareykanka wuxuu lahaa dukaan lagu iibiyo warqadaha saamigalka shirkadaha yaraantiisii wuxuu ahaa shakhsi firfircoon oo xiiseeya ganacsiga markii uu ahaa 13 jir wuxuu soo iibsaday 3 saami shirkadeed isagoo oo ku soo iibsaday lacag dhan $35 maalmo kadib waxa kordhay qiimaha lagu kala iibsado saamiyada wuxuuna gaaray $40 Warren markii uu arkay in qiimaha saamiyadu sare u kaceen wuxuu dib u iibiyay 3 saami isagoo ka faa'iiday $15 laakiin Warren go'aanka uu ku iibiyay saamiyadii wuxuu ka qoomameeyay markii ay muddo yar kadib kor ugu kaceen saamiyada shirkadii uu lahaa $200 saamigiiba taasoo ka dhigtay Warren mid barta casharkiisii ugu horeeyay ee suuqa saamiyada oo ah dulqaadka lacagtii uu aruursaday caruurnimadiisii ayuu ku bilaabay hantida uu haysto taasi waxay muujinaysaa inay muhiim tahay in qofku muruqiisa maalo waxna kaydsado sanadkii 1942 Warren aabihii waxaa loo doortay aqalka wakiilada ee dawladda dhexe taasi oo keentay inay u guuraan gobolka Virginia ee dhaca dalka Mareykanka oo ahayd gobolka laga doortay aabihii tani oo siisay inankan fursad cusub oo uu ku samaysan karo ganacsi cusub Warren wuxuu ku biiray iskool secondary ah oo ku yaalay magaalada caasimadda ah ee Washington wuxuuna sidoo kale halkaasi ka bilaabay qorshihiisii uu ku doonayay lacag samaysashada waxayna isaga iyo saaxiibkii soo wada iibsadeen qalab lagu ciyaaro oo lagu magacaabo pinball waxayna ku soo iibsadeen $25 kadibna waxay dhigeen goob timaha lagu jarto muddo kooban gudaheed waxay ka xaqiijiyeen faa'iido badan taasoo ku dhiirigelisay inay soo iibsadaan 2 qalab oo kale oo ay dhigeen 2 meelood oo kale ka hor intaanay saddexdaba dib ugu iibin $1,200 markii uu Warren 16 jirsaday wuxuu ku biiray jaamacadda Pennsylvania oo uu ka bilaabay barashada ganacsiga ka hor intaanu 2 sano kadib u wareegin jaamacadda Nebraska oo uu ku soo afmeeray darajadiisii koobaad ee jaamacadda markii uu 20 sano jirsaday isagoo xilligaasi hantidiisu ahayd $10,000 oo uu sameeyay intii uu wax baranayay lacagtan uu aruursaday Buffett intii uu ku jiray jaamacadda waxay u noqotay bilowga tallaabada koobaad ee uu ku koray jaranjar aad u dheer oo guulo ah oo uu ka xaqiijiyay suuqyada saamiyada Mareykanka isagoo dhidibada u taagay shirkadda saami ee ugu baaxadda weyn adduunka bishii Juun ee sanadkii 2006 wuxuu ku dhawaaqay inuu hantidiisa oo dhan uu ugu deeqay hay'adaha samafalka ka shaqeeya isagoo 85% ka mid ah hantidiisa ugu yaboohay hay'adda Bill iyo Maalinta ee ay leeyihiin Bill Gates iyo xaaskiisu tallaabadani oo ka dhigtay Warren mid ka mid ah maalqabeennada ugu deeqsisan dalkaasi Mareykanka ma jirin Buffett wax ku kalifayay yaraantiisii inuu shaqaysto maxaa yeelay qoyska uu ka soo jeeday wuxuu ahaa mid ka mid ah
qoysaska ugu hodansan uguna caansan dalkiisa, laakiin wuxuu ka doorbiday samaysashada iyo yagleelidda noloshiisa u gaarka ah. intii uu ku tiirsanaan lahaa guulaha iyo sumcadda reerkiisana, wuxuu go'aansaday inuu curiyo guushiisa u gaarka ah, isagoo geed dheer iyo geed gaabanba u koray 13 jirkiisii inuu xaqiijiyo guusha uu maanta midhaheeda guranayo, waana tan ka dhigtay maanta qof sumad u noqda macnaha guusha. Tonight from one of the richest men in the world. Mega billionaire Warren Buffett says he is giving away most of his fortune to charity. Buffett has pledged to give away the bulk of his fortune to the Bill and Melinda Gates Foundation and giving more than 15%